fursad baad ku haysataa aad nolosheedii jidhkeeda ku baarato waayahay kadib gabadhii duruufteed kaga faa'iidaysanaysaa waayahay jacayl dartii uma ooyo laakiin go'aan buu u qaataa adag oo qadhaadh haye go'aankaasoo ama naftiisa khatar gelin kara ama mustaqbalkiisa waayahay laakiin dumarka oohinta way ku nafisaan dhalayay dhegeyso haye dhulkan ku jiraa ogsooni ifkaan ka dhammaaday hooyo inaan dhinto maan jeclaysan wad baa i dhuftay dhegeyso dhambaalkaagiina dhuuxay dharaaro xun baad jirtaa dhabarka hooye adkayso sidii ayaad hirasoo waayahay ishii ku haleeshay baa hadlasee waayahay haddeerna naftaad ka haw tidhibaa haye haabhaabatayun halkaad ka tagtee ka tagtee haddaan ku helaynin way hadime way hanay mar qurun horteeda iskan haye alla mahalla ilahay ma iskeenaysaa way iskeenaysaa marka muuqaalka daawato haa alla ilahay ma iskeenaysaa waay iyo midda koobaad inaad sharaftiina iyo ciddigiina ilaalisaan intaad sharaf leedihiin baad nooshiin sharaftiinu hadday dhimato noloshiinu waxba kama jiraan bay noqonaysaa kulan wacan u wanaagsan khiyaarta hawada naga daawanaysa idahaantiida waa waraysi gaara ana yeelanay abwaan farxan sheer marka hore waa kusoo dhaweynayaa abwaan farxan waraysiga waa kusoo dhaweynayaa bejka subeer kubrana waa kusoo dhaweynayaa aad baan ugu dhowahay saaxiib bejka subeer kubra iyo bodcastiga iyo adiga intaba aad baad mahadsantihin waya farxan waraysigaynu gudaha galaynaa waraysiga caawa dhowr dhinac baynu daari doonaa haddaynu qeybta koowaad daarna farxan horta su-aal ban maxay dumarku quruxda horta dumar lagu gartaa ama quruxda dumar lagu xusho horta waa maxay ugu horeyntii subeerow horta waktigii hore walow laga soo gudbay haddana quruxda dumarka waxaa la eegi jiray 7 qodob haye 7 qodob haddii laga waayo waxaa la odhan jiray 3 kalena u eega saddexdaa kalena haddii laga waayo 3 kale loo sii eegi jiray 33 qodob haddii inanta laga waayo waxaa la odhan jiray inan mahatan waa bahal intaan ku cunin ka carar 7 qodob waxaa ka mid ahaa inay gabadhu 3 u dhuubnaato sanka iyo qoorta iyo muxuu ahaa dhexda saddexda inay gabadhu u dhuubnaato saddexna inay u madoobaato waa tinta iyo ciridka ilkaha inay gabadhu u madoobaato iyo dibnaha waxaa kaloo loo eegi jiray gabadhu inay 3 u caddaato inay cidiyaha u caddaato sidoo kale inay u caddaato ilkaha ay gabadhu gabadh ilka cad noqoto sidoo kale inay usii caddaato muxuu ahaa allaba kuma samadarnaade waa cidiyaha iyo ilkaha iyo indhaha isha caadka saddexda inay u caddaato saddexna inay u yaraato codka inay u yaraato oo gabadh hadalkeedu dhowrsan yahay noqoto cirka inay u yaraato oo gabadh cuntada in yar ka cunta inay garanaysa inkastoo imika ay daayaree soo baxeen oo habluhu inta badan hodheelada ka qadeeyaan haddana inay cirka inay u yaraato iyo tasaddexaadoo cagta inay u yaraato gabadh dhowrsano gurigeeda ku sharfan inay noqoto 7 amuuradoo noocaasaa jiray haddii 7 la waayo 3 laga helay baa layidhi adigu shakhsiyadaada xulaha haddii la kooda hada gabadha maxaad ku xulan lahayd anigu 3 qodob baan ku xulan lahaa subeerow maalin baa waxaa dhacday 3 nin baan hayno waxaa la yidhaahday waa nin waloo gabadhaad jeceshahay maxaad ku dooran lahayd deeto labadii nina kalaa soo sheegay waran waxaasan ku dooran lahaa deeto anigay soo gaadhay anu waxaan ku iri war anu tix kaga jawaabi maayo taraaban kaga jawaabaya caawa xaafadda markaan tago ayaan maanse kasoo samayn doonaa marka maansadaas waxa 3 qodob bay sheegay 3 qodob aan gabadh ku dooran lahaa maansada waxaa ka mid ahayd rabeel baa la idhahdaa maansadaasoo intii dhaban lee quruxoo dhantaad dhamaystiranay ka dhaayasantoo allihii ku dhilee dhabeelku qoraa dhaliil iyo indhanka ka duwe miyuu dhagax buuri dheen ma noqdaa taas waa quruxtii dhabanka talabaadna waxay noqonaysaa dhararkii waxaan idhi intii dhar lee dhul seeganasaad sidii dhebigii u dhaaftay korkoo allihii ku dhilee dhabeelku qoraa dhaliil iyo indhanka ka duwe miyuu dhudiyo qofkuu dhigmayaa iyo qodobka saddexaad oo ahaa dhowrsoonida akhlaaqda dhabtaa dhasheeda tahoo dhowrsooni adaa xishood ka dhaxlee edaabta dhan baad dhistaysatayoo adaa dhaqankii dhabarka ku sitee miyaan dhudiya ku dhaafi karaa markaa 3 qodob oo quruxdaas iyo allahuma salli iyo dhararkaas oo jir ahaana iyona gabadhii dhowrsan tahay 3 qodob baan ku dooran lahayo 3 qodobna tii aan ku dooran lahaa waan helayba oo waan hayaa
jacaylka Mm. iyo xiisaha galgacaylku maxay ku kala duwan yihiin iyo waa amuuro istaba socda haye waa leefallo qofka bini'aadankii uu si rabaaniya u maro waayahay iminka waxbarashada oo kale system bay leedahay waayahay qofku marka hore diblom buu qaadanayaa waayahay kadib degree buu haddana qaadanayaa waayahay haddana master buu qaadanaya marka dambena PhD buu diyaarinayaa waayahay jacaylkuna 4 marxaladood buu maraa marxaladda ugu horeysa xiisaa la idhahdaa qofkii dabadda sad ka arkaysaa waad xiiseynaysaa qofkii inaad barato xogtiisii lambarkiisii hesho ayaad xiiseynaysaa waa tallaabada koobaad intaa markaad ka gudubto qofkii waad jeclaanaysaa markaad jeclaato weliba jacaylku waxa marka labada qof isjecel yihiin ee jacaylkooda wadana xiriir leeyihiin ayaa la dhahaa marxaladda ugu wanaagsan marxaladda saddexaad waa galgacalo waa markii qofkii aad guursato ayaad qofkii galgacalkii waa naxariis iyo daryeel labada qodob weeyaan ayaad daryeel naxariis siinaysaa qodobka afaraad u dambeeyana waa koogu xuno ishqi baa kaa la idhahdaa kaas waa kii boodharo dhintay qofku naftiisu iloobaaba marka waa koogu daran kaasi marka afartaas qodob bay iyaguna laftirkoodu kala maraan maanse waxaa jirtay jacaylkii waa kaa dhintee maxay odhanaysay jacaylkii waa kaa dhintee bal waa waxa aad ka dheefto jacaylku waa kaa dhintee bal waa waxa aad ka dheefto waayahay waxaa jiray inan buu aad u jeclaa marka waa isla cishqigana kuu sheegayo inantii markuu aad u jeclaadaba inantii baa fahmi weyday deeto markii dambe inantii buu aduu way ka tagtay uu ka samray inantii nafsigii baa soo qabtoo dib bay ula soo xidhiidha dee qalbi dhintay oo bir hore duugmay maxaad ka wada wadaa buu leeyahay waxa maansadaa ka mid ahayd anigoonba doonaynin inaan hadalku deeqsiiyo haddii aad idayn weyday runtaan kuu dulmarayaayo bal dib hay ku soo baxan ila soo hadashaya dee haddii aad aamusi weyday runtaan kuu sheegaya maanta waa hooyo ku gomoogta wuxuu yidhi beri hore xidhiir duugmay danaystow ku jeesteestay maxaad ruuxdan kaga daalin qayrkaa mar hore doortay daha naftii la dhaawacay qof baa dhayey moogti dee naf la dhayey oo qarash iyo magarasa qarash qalbiyani ku baxay dee xaggeed ka helaysaa wuxuu yidhi naftan aad shalay daysay iyadoo dareen buuxda ee aad ku tiri diiday inaad maanta soo doonto soo kugu dunub maaha ee qofkii shalay cidlada kaaga dhaqaaqay maanta inuu dib kugu soo baxdo anuu qalad baan u arkaa wuxuu yidhi si kastood u tahay daacad anna ii danaynayso jacaylkaa daraad aastay anu waan iskaba daayay dee daacadnimadii shalay haddii anigu wax ii goyn weyday adiga taadu maanta wax ku goyn mayso wuxuu yidhi dunidaa isweydaarah adoo dakharre ii geystay dawadana isiin waayay nabsi dabarka ku giijay waxaa nabsiga la idhahdaa ma daaho moogtay nabsina waa gelin ma daahay halkii lagu galay ma dhaafo falkuna iska geysa maaha maansaan lahaa bay ka mid ahayd waxaad maanta geysataa beritoole waa lagaa gudaya dacartaad shalay qoostay hooyo dhadhami doorkan wuxuu yidhi belidaa damiir yeelo dunidana rag waa buuxe anuun haygu duubnaana dookhaaga soo baadho xiisahaagii waan daadshay dabayl siigalaa qaatay anna waan ka soo doogay adiguna istabarhuuno halkii u dambaysa waan oran karnaa waad aad iyo aad wuxuu yidhi damqatiyo bagaad oyday dartii aad u boholyooday naftii aad shalay diiday naxariis ka soo doontay naxariis ka soo doontay way tuurtay wuxuu yidhi maskaxdiiyo dubaaqaaga dalabkaad u sheegayso kaama doonayaan kowdha duco iyo wanaag qaado dabinkaad shalay aastay haddii uu ku dabay maanta danahaaga weeyaan kaligaa istabarhuuno diyaar kuuma ihi maanta dareenkiina uu guuray damac kuuma hayo qaali adna haystaraysiinin durkay waa nasiibkaaga farxaddii duntay kowdhe anuu waan tashaday maanta adiguna istabarqaali marka maase caynkaas ahaydo soo kaabin farxan inagu sheekadayna sii wadanaynaa jacaylka ka ragga iyo ka dumarka sababtan u guuldaraysta mar walba jacaylka dumarkii ee u guuleysta mar walba jacaylka raggu waa maxay waxaa la yidhahdaa jacaylka dumarka iyo ka raggaa guuleystaa la yidhahdaa sababta ka dumarka u guuleysan waayo waa maxay ka ragga sabab buu u guuleysan waayaa u guuleystaa ka dumarkuna sabab buu u guuldaraystaa waayahay anigu niyahow fikirkayga maanta gabadhu markay ku jeclaato adiguna aanad rabin gabadhii oo aanad jeclayn oo mustaqbalka lahayn keliyaata waxaad odhanaysaa war gabadhan fursad baad ku haysataa aad nolosheedii jidhkeeda ku baadhato kadib gabadhii duruufteed kaga faa'iidaysanaysaa
markaad gabadhii duruuftii kaga faa'iidaysato ood shirkeedii aad dareenkii kaga bedelato waayahay berri ka maalin dee nin barragaato waddadaasaad ka baxaysaa